rada garaadada iyo salaadiinta dhammaan madaxda mas'uuliyiinta xisbiga dhammaan beeshan ballaaran aynu qabanayno xafladan ballaaran saxaafadda iyo marti sharaftaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad weyn bay tahay inay maanta dhinacayga joogaan boqorrada iyo garaadada iyo salaadiinta iyo haldoorka beesha waxaa ka mid ahaydeen sida la xusay xisbiga marti kuma teedin dadkii aasaasay ee rukumada u taagay dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan waa ka mid ahaydeen dadkii iska sharaxay doorashadii ugu horreysay golaha deegaanka ka mid ahaydeen gobol kasta madaxda xisbiga ka mid tihiin waxaan u mahadnaqayaa inta kale ee maanta garatay in qarankanina badbaado u baahan yahay midnimaduna muhiim tahay aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rumaysnahay ku qanacsanahay inaydaan dadka ka yarayn laakiin tafaraaruq jiray haddii midnima timina waxaan rumaysnahay in himiladiinna aa gaadhaan oo ayna heshaan xuquuqda walaalihiin somalilan ay haystaan ee u siman tihiin hal ballanqaad waan ku celinayaayo waxaan filaya in la maqlay markaan beesha dee xoogaal u ahay in badan iswaraysanay waxyaabaha ay tabayaan waxaa ka mid ah mas-uuliyadaha ugu sarreeya ee qaranka oo ay ka mid tahay xukuumadda inaanay weligood ka gaadhin wasiir waxaan ballan qaaday haddii ilaahay idmo oo 3 bilood kadib aynu xukunka nimaadno wasiirka ugu horeeya aa saxeexaa inuu noqdo wasiir beeshiina ka tirsan waxaan ballan qaadaynaa insha allahu in xuquuq la siman dadkana aa yeelataan waa ka shaqaynaynaa sidii boqorku sheegay waxay u baahan tahay wax waliba in laga shaqeeyo waxay taariikhdu xusi doontaa salaadiinta dhinac taagan iyo haldoorkiinuba inaad tihiin xuquuq dirir xaqooda doonaya nimankana ay hormuud ka yihiin ayay taariikhdu qori doontaa insha allah waana ku guulaysanaynaa hadafka aynuu socno waxaa muhiima codkiinu ma yara waa isla garanna waxaa muhiima kararkii la qaato si codkii u soo baxo u muuqdo si laydiin arko haddii xisbiyadii hore idiin arki waayeen codkiina idin tusaya wixii hadda ka dambeeya waa laydiin baahnaan doonaa waa laydiin baahan yihi waa ku xisaabtami doontaan marka waxaa loo baahan yahy inaad qaadataan kaararka insha allahu waxaan is leenahay codkiinuna waa ka guusha dhalin doona waddani haddii alla yidhaahdo somalilan himilada xisbigu waxaa weeye in shacbigu u siman yahay oo inanka tukaraq jooga iyo ka lowyacadda jooga iyo ka badhan jooga iyo ka ceelgaabo iyo hargeysa iyo burco iyo berbere jooga aynuu simannahay qof waliba oo siduu u shaqaysto siduu u dadaalo ayay noqonaysaa taas aynu ka sinaan doonnaa haddii allahay ka dhigo waxaynu doonaynaa qaran cadaalad ku suntan inaynu samayno horumarkana dalka uu kala hormaree laysi soo gaadhsiiyo gobollada bari way ka dambeeyaan gobollada galbeed inkastoo iyaguo weli cabanayaan
oo laga yaabo asleedii xaggaas wax walba loo badiyay meel aan cabanayn Soomaaliland ma jirto laakiin haddana waa kala badan yahay runtii horumarku marka la eego waa la soo gaarsiinaya dalkana haddii Ilaahay ka dhigo waxaan jecelahay gobolka Sanaag wuxuu ka mid yahay gobolada ugu khayraadka badan Soomaaliland khayraadda uu dheer yahay gobolada kale Soomaalilandna waa jiraan waxa ka mid ah beeyada ama xabkaha iyo falaanka bariyahan dambe waxaan ka maqlayay qalabka warbaahinta in ganacsigaasi oo kumanaan qof ku nool yihiin oo 100 awow iska dhaxleen oo si xor uga ganacsanayeen waxa soo baxaya in koota laga dhigayo kootada dastuurku ma ogola ganacsiguna waa xor waxaan soo jeedinaynaa inaan la faragelin ganacsiga xornimada ka ganacsiga beeyada iyo faleenka oo ah khayraad Soomaaliland ay ku caan tahay oo kumanaan kun oo maanta haddii arrintaasi dee la farageliyo ku shaqo beelaya ay soo bixi doonaan sideedabana xisbigu iyo dastuurka Soomaaliland midna ma ogola in ganacsigu koota noqdo waxaa siyaasadda xisbigu tahay in khayraadkeena la dhiirigeliyo oo qofka wax beerta la dhiirigeliyo oo qofka beeyada beeraya la dhiirigeliyo oo ka galeyda inoo soo saaraya la dhiirigeliyo oo wax soo saarkeena aynu dhiirigelino oo kalluumaysatada la dhiirigeliyo waxaynu doonaynaa qof waliba wuxuu haysto inuu si xor uga ganacsado oo aan cidina faragelin waxaan u mahadnaqaynaa guud ahaan shacbiga gobolka Sanaag oo noo muujiyay taageero ballaaran shalay tuman hadlay waxaan ku yiri Sanaag way codays cid ay codaysana way caddahay soo wadani maaha marka kaararka u qaata ilaa shadana kaararka Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Ergaabana ha noolaato Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh